بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفاعل خير يا مركلة وأيامها نهودا كما قنات ولي كاميرا صومان هور فريسن مدو إي ورما واقي قرعال با إي قدام بيدا كاميرا دنا صهر فريستو waan soo noqday alxamdulilah shukr rabbil caalamiin waxaan rajaynayaa inaad ii nabad qabtaan oo aad fiican tihiin walaalayaal asxaabay waxaan rabaa maanta inaan inkala hadlo arrin maaragtay wacyigelin ah baraarujin ah oo maaragtay ku saabsan horumarka ummadda Soomaaliyeed ku saabsan maaragtay waxyaalaha aan maaragtay dawlad wanaagga iyo ummaduhu ku horumaraan oo maaragtay maxaa tiraahday waddanku ku horumaro gaar ahaan waxaan taargad garay doonaa oo maaragtay dalkeennii Soomaaliya iyo dadka maaragtay mas'uuliyiinta noo haya ayaan taargad garay doonaa qaybo ka mid ah kulli macnaha ma wada taargad garay doono mar baan safaaradaha ka hadli doonaa mar baan maxaa tiraahday aan dadka madaxda aan si gooni uga hadli doonaa laakiin hadda si guud baan u hadli doonaa sida guud aan u hadlayo gaar ahaan waxaan maaragtay hadalkaygu uu ku socdaa oo si guud iyadoo ah oo haddana talahaan ah ayaan haddana dadka xafiisyada ummadda u fadhiya ayaan rabaa inaan la hadlo ilaahay idanki soo dhawaada marka waxaan idinka codsanayaa marka hore intaan hadalka bilaabin haddaad hore noola joogtana jazaakallahu khayr share comment like haddaad nagu cusub tahana waxaan kaa codsanayaa subscribe aan share aan comment aan like iyo walaalaha oo la gaarsiiyo insha allah bilkariim soo dhawaada waxaan rabaa walaalayaal Yurub iyo Ameerika horta maxaa loogu soo cararaa waay dadka Soomaaliyeed ee Yurub iyo Ameerika ay ugu soo cararhayaan oo intaasoo badood ay u soo jiirahayaan oo intaasoo lacag ay ugu qarash gareynhayaan oo gabdhahanaga u dhimanhayaan oo wiilashanadu u le'anhayaan oo ugu dhimanhayaan inay Yurub iyo Ameerika inay tagaan waay Yurub iyo Ameerika markaan nimid barwaaqo weyn oo taalla ma jirto annaga ka wadan fiican annaga ka hawo fiican annaga maxaa tiraahday ka firfircoon annaga maxaa tiraahday aan ka kalsooni badan marka waay annaga maxaa nagu dhacay maxaa naga qaldan waa bil aadan malaa'ig ma ahan jin ma ahan bil aadanka iyo jinkaaba baalkii bil aadanka ayaaba wanaagsan boo caqli badan laakiin ayagu waa nala bil aadan waxay u badan yihiin 99% maaragtay maxaa tiraahday kufaar oo ilaahay iyo rasuulkiisa ma rumaysna maxaa tira waddankooda waa qabow iyo baraf iyo dhibaato aan maxaa tiraahday nama jecla oo dadkan naga madow ma jecla marka maxaa anaga naga qaldan uga soo cararaynaa sababtan idin sheegaya qofka bili aadanka ah maamulka ma soo haro waxa loogu soo cararayaa waa maamulka iyo kala dambeynta number 1 waxa loogu soo cararayaa aan amniga yarka oo ka jira amniga xitaa aan maaragtay wuxuu soo hosgalayaa maamulka waayo maamulku markuu wanaagsan yahay amnigu de waa number 1 amniga ka jira maamulka iyo maxaa tiraahday iyo maaragtay iyo soo dhaweynta iyo adoon lagu faquuqaynin oo shaqo lagu siinhayo oo caafimaad aad helaysid oo maaragtay noloshaada iyo adigu yaada qanimayaada noqon because Yurub iyo Ameerika dadka jooga oo fooranka waxa la yiraahdaa dadka soo galootiga ah ma ahan dad rich ah ma ahan xabad yaroo meel yar agensiyaal ka furta markay 20 sano 30 sano joogeen yes way jirtaa laakiin ma ahan maaragtay maxaa tiraahday meel lagu taajira ma ahan maadaama ay sidaas ay tahay dadkana waxay u soo cararahayaan oo badaha u soo jiirahayaan waxa weeye waa maamul xumo marka dadka maamulka noo haya oo xafiisyada noo fadhiyo miyaysan dad islaam aysan ahayn miyaysan ilaahay ka baqaynin miyaan maaragtay qabrigii ay maalin kasta dadka gelinayaan miyaysan maaragtay ogeyn waay ay dadka maamulka ugu hagaaji la'yihiin waay ay dadka nabadgelyada u hagaaji la'yihiin waay maxaa tiraahday madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirada ninkii wax qaba waaye waay loo tuuri waaye ninkii wax qaba waaye madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxa laga rabaa waxa ka hoos shaqeynaya Soomaaliya wasiirada ka hoos shaqeynaya marka waxa la rabaa qofkii shaqada loo diray shaqadiisii hadday fashilan tahay tusaale aan amnigi ma joogsanayo amnigi dadkii baa la dilahayaa maalin kasta dad baa la dilaa qaraxa dhacahaya dhibaato socota ninka amniga haya oo amniga u qaabilsan wasiirka amniga iyo maxaa tiraahdaa iyo booliiska ninka maartay maamula oo maartay aan ka ah
maxaa tiraahday aan ugu sarreeya booliiska labadooda waa in shaqada laga eriyaa dadka ka hoos shaqaynhaya iyo ninka loo dhiibahaya markaas oo lagu bedela waa inuu ogaado meeshan inaysan guri hooyadiis aysan ahayn oo ay ahaato ninka shaqada qaba waay waana loo sheegaa ninka haddaad shaqada kasoo bixi weyd ma kasoo bixi kartaa aqoon ma u leeda haa ma ku u dhaarto kitaab ma marto haa haddaa kasoo bixi weydid waxay ogaataa shaqada sidii hebel looga eriya ayaa adda lagaga eriyaya adoo gurigii qabyo kaa yahay kulli gurye wada dhisayay maarata guryo dhis ayay mashquul ku noqdaan adoo gurigu qabyo kaa yaha laga eriya shaqada waa in la yiraa waa in la tusaa ninkii shaqadiisa kasoo bixi waaya waa in iridka laga baxshaa waxaa kaloo jirta dadka xaafiisyada fadhiya waxaa la rabaa dad la daba dhigay inay shaqadoodii si saxa u qabteen iyo in kale dadweynaha waa in la waraysto shacabka waa in la waraysto xaafadaha nabadgelyada waa in la waraysto maxaa tiraahday aan iishee kuwa qaybta baasaboorada inay shaqada si fiican u qabteen oo migrationka baasaboor kalimaan migrationka waa fara badan yahay qaybta migrationka waa in dadweynaha la waraysto waa in maaragtay dad dabagal ku sameeya waa in maaragtay la daba dhigaa waa in maxaa tiraahday dadka si fiican ay ula dhaqmaan malaaluushay ka qaadaan maaragtay dadka makuyuugay dadka ku dheereeyaan waa in maaragtay haddii saa loo shaqeeyo oo qofka xafiiska fadhiya uu ogaado in la daba socdo oo ninkii mushaharka siinhayay uu cagta u saaro anigu waxaan aaminsanahay ninkaasu si fiican ayuu u shaqaynaya marka horena waa loo sheegayaa kuyuuga ma dheeray kartid qofku markuu ku yimaado shaqadiisa waa inaa u dhammaysaa ugu yaraan intaasoo qofood waa inay ka shaqaydaa ofiskaaga haddii meeshu ay aad mashquul u tahay waa in dadka loo sameeyo qol la yiraahdo maaragtay ii sheeg aan waiting room waa in dadka kuyuu la geliyo oo aysan ahayn dadkii kuyuu ku jira mid aad istaqaanin oo saaxiib ah xagga kasoo wareeg hadda ka hor maraan xamar kasoo dhoofayna ayaa waxaa jirta kuyuu baan ku jirna markaasaa haa hebelow ma fiican tahay halkaas mid baa xagga kasoo galaysa anagu kuyuu ugu jirna ayaa mid mar dambe soo gala haa hebelow halkaas si nin salaamaha iska dhiga halkaas shisho inta kasoo wareego ayuu maaragtay ninkii halka waraaqdiisii baasaboorkiisa iyo hoos looga wada dhameeyey waxaasoo dhan waa edab daro waxaasoo dhan waxaa la rabaa qof la socda hadhow ninkaas shaqada ka cayri kara qofka waxaa la rabaa shaqadiisa inuu ilaashan karaa la rabaa oo qof la arko uu yiraa shaqadan haddaana si fiican u qabanin waa layga cayrinayaa ma garata laakiin orod cid dabagelaysa ma leh cid maxaa tiraahday la xisaabtamayda ma leh xisaabtana musuq maasuqa lala dagaalama musuq maasuqa waxaa ugu weynba haddii xafiisyadiiba saa u qasqasan yihiin waxa ugu weyn musuq maasuqa waxa weeye madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha yes cid kasta madaxweynaheeda iyo ra-iisul wasaaraheeda ama maamul goboleed ahaaw ama dowladda hoose ahaaw waxaa la rabaa wasiirada in lala xisaabtamo wasiirku waa inuu ogaado in la daba socdo wasiirkuna waa inuu dabagal asna ku sameeyo kuwa ka hoos shaqaynhaya shaqadiis waa inay kala socoto eeg baabuurtii lacag baa laga qaadahaya jidkii ma samaysna oo jidadkii baabuurtii jiday maraan male dadweynihii jiday maraan male iska daa kuwa xiran laakiin kuwa xitaa aan caadiga oo la marahayo dadkii magaaladii waa in jidad loo baxshaa dadka lacag baad ka qaadaysaa dadka qaalaha aad ka qaada jeebkaaga inay gasho maha jeeb kale inay gasho maha dadweynaha waa inaad ugu shaqaydaa adigu mushahar baad leedahay waa in dadka la baro oo tareerin loo sameeyo every 3 months dadka waa in tareerin loo sameeyo rag iyo dumarba dadka xafiisyada ka shaqeeya maanta waxaa iskale qoladii maaragta taraafikada maanta tareerinka waxaa iskale qoladii caafimaadka cid walba waxaan ku yidhi tareerin bay u baahan tahay ma garata marka tareerinka walaalayaal waa is very important qofku waa inuu shaqadiisa ku waayaa hadduusan qaban karinin haye maba la shaqaynhayaba waxaan ku yidhi qaar baa waxay ku leeyihiin anagoo kuyuugii ku jirna oo sugayna ayaaba qadowba iska doonanaaba yaa kuu baneeyay inaad qada doonatid dadkii aad u shaqaynaysa oo kuyuuga kuugu jira oo laga yaabo dad xanuunsanaya inay ku jiraan oo laga yaabo waayeel inay ku jiraan oo laga yaabo caruur inay ku jirto how aad qada u doonan kartaa adugu how aad qada u doonan kartaa qaar baa waxaa lagu leeyahay aan waraaq yar bad oga baahan immigrationka ama qaybta maaragtay aan baasaboorka soo noqo isug maanta dhawaad sugaysaa waad fadhine intaasoo saacad fadhinaysaa taasda xaaraam walaalayaal xaaraam weeye qofka teemkiisa muslimka inaad ka dhumisid xaq uma aad lihid maxaa tiraahday aan qaarkood waxaa lagu leeyahay halkaa iska fadhiiso waxaa la sugayaa inaad in yar la yiraahdo xoogaagan iga qabee hawsha ii dhamay laaluush buu sugayaa suubis iska bixi suubis yaa ku yiri suubis qaado yaa ku yiri maxaa tiraahday laaluush qaado laaluushka rasuulku soo madhin calayhi salaatu wasalaam midka bixinhaya iyo midka qaadanhayaba lacnatullaahi
lacnada ilaahay baa ku dhacday soo lama dhihin lacnada ilaahayna waxa weeye naxariista oo laynka fogeey daas waay lacnada waddanka ay ugu dhacday nabadgelyadii ayaa cirka isku shareertay roobkii baa maaragta la waayey maxaa tirahdee wax walba wada qaali maxaa dadkii way isnaceen maxaa tira qof raba male khiyaanadii baa badatay walaalayaal ilaahay ka cabsada hoy nimanka soomaaliyeed ilaahay ka cabsada war culummada mideeda labaad culummada soomaaliyeed maxaa tirahdayay jimcahoo kale inaad dadkii muxaadarooyin aad u qabataan oo qodbooyinkiina aad ku soo qaadataan xafiisyada dadka ka shaqeeya in ilaahay ka cabsadaan oo axaadiistii ku soo aroortay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dadkii wanwanaagsanaa sida ugu horumareen inaad dadka aad u sheegtaan lambar 1 lambar 2 dhowrsanaanta dadka inay dhowrsanaadaan oo jirhaana u dhowrsanaadaan waxay cunahayaanna ay u dhowrsanaadaan inaad dadka kala hadashaan oo dinka ruuxiina every Friday bixiya tareerin maaragta kitaabka ilaahay ku qoran culummo allah culummada Soomaaliya joogta ilaahay ka baqa waxyaalaha mujtamaca ka qaldan ayaa waxa la rabaa inaad ku samaysaan maxaa tiraahday aan qodbada aad ku soo qaadatid nabadgelyo xumaa jirta duhur cada la isdhacaya shiiq waxa laga yaabaa ma akhira waa la dhimanayaa yas waa la dhimanayaa laakiin dadka wax dhacaya yaa dhalay hooyo aabba dhalay aabbo wiilkaaga haddaadan celin karinin qaybta amniga u sheeg hala xiro wiilka xabsiga jeelka ha loo dhaadhacsho wiilkan cirka kama soo dhalan dadka dhacaya oo midida dadka ku qaban hayeen muxuu yahay culummadu waa inay hadlaan qodbada ku soo qaataan hanalka joojiye daraaga dhalinyaradii waxa weeye daraag bay cuneen daraag waa qaali Soomaali baa keenay gaala keenay daraagi waxa weeye daraagi markuu cuno wuxuu doonayaa lacag uu ku gato daas waay oo dadkii marka midi gali kan bastoolad ku dhufo kan magacisay wara ilaahay ma laga cabsado waryaa daawadu meelaysan jirin haddaad u raadisid ma helaysid daawadu meelaysan jirin haddaad u raadisid daawadu waxay jirtaa inaad wacyi gelisaan dadka inaad wiilashiina dadka ka qaqabataan dad baa laga sheegahayay aan waarida oo la yiri aan maalin idaacad ka dhigaysanahay waxa la yiri wiilashiina naga qabsada aan dhahan markaas ilaahay waxba kama qaban karno صح dad shacab waxba kama qaban kara wiilku duu caasi noqdo saaqid oo noqdo maxaa tira waxba kama qaban karo laakiin wuxuu ka qaban karaa oo kale wuxuu u sheegi karaa booliiska ama qaybta xabsiga uu dhihi karaa wiilkan halla xiro ana aabiisa ummadii uu dilay xilligaas uu guriga yimaadaa qabta jeelka dhiga laakiin waxa ii daran oo aanan ogeyn oo xaqiijin karin kulli gobolada way ka jirtaa qof haddaad xirtid lacagaad ku sii bixinaysaa bay ku leeyihiin dadkina lacagtaas ay ka cararayaan laakiin waxaan u maleynaa caasimadaha kama jirto marka xir lugta haddaad ka xirtid qof baa un ka fura siba u baxsan haya laakiin xabsiga jeelka dowladda waa in loo dhaadhacsho waa in la furaa jeel la yiraahdo dhaqan celis oo dowladda lagala hadlo oo maamuladu ka wada hadlaan oo maamulka markaas meesha ka jira ama gobol ha noqoto ama caasimadda ha noqoto oo dhaqan celis loogu sameeyo carruurta oo markii daraaga jirkooda ka baxo culumo ay u tagto la wacyi geliyo diinta ilaahay loo sheego maxaa tira loo muxaadareeyo waxaan wax xun inay yihiin maarta carruurtii loo tuso ma garatay marka ilaahay ha laga cabsado dadka xaafiisyada joogana dabagal waa in lagu sameeyo ma ahan dadka in la iska sii daayo haddaada ku samaynin madaxweynow ra'iisul wasaaruhu haddaada ku samaynin dadka kaa hoos shaqaynaya inaad raadraac aad ku samaydid haddaada ku samaynin oo aadan ayagii dabagelin inay shaqadooda qabtaan iyo in kale aday ku fashilahayaan dadku shaqaalaha kaa hoos shaqeeya ma yaqaanaan aday ku yaqaanaan madaxweynaha la yaqaan daas waay madaxweyneyaalka Soomaaliya daas waay u fashilmayaan oo mid kasta xumaatadiisa loogu jeedaya waayo ninka aan khiyaanalowga ah waxbuu qasaya wuxuu leeyahay dawladda qastay dawladda yaa waaya Soomaali dawladda waxay u taqaanaa madaxweynaha ay Soomaaliya dawlad u taqaanaa yaa ra'iisul wasaaraha u taqaanaa midka amniga haystay u taqaanaa midka aan maaragtay ciidamada nabad sugidda u taqaanaa ma fahantay especially madaxweynaha u taqaanaa marka madaxweynaha waxaa laga yaabaa waxa laga rabaa waa inuu soo qorto waxyaalaha uu baahan yahay markuu qorto waa inuu yiraahdo hawsha noocaas iyo xafiis walba waa in dabagal lagu sameeyo fadhigiisa kursigiisa isagoo fadhiya waa in lagu keeno oo la yiraahdo saan wax loo qabto waa in dadweynihii la soo ogaado oo dad xitaa dadweynihii soo wareysta nabadgelyadii war waxaan kuri wax isbedela waa in la sameeyo subxaanallah dadweynihii waa in lala hadlo la yiraahdo haye nabadiina ka warrama caafimaadkiina ka warrama si fiican ma in kugu shaqeeyaan dadku aan laynii soo diray ii sheega waa inuu madaxweynuhu yiraahdaa oo dadka uu la hadlo daas waay dadkuna saasay kugu jeclaanayaan madaxweynow ama kan soo socdo ha noqdo ama kan jooga ha noqdo
maxaa tiraahday ra-iisul wasaaraha sidoo kale waa inuu yiraa wasiiradaydu hawsha sida loogu diray shacabow ma idinkugu qabtaan maahan in lagu sabciyo 4 xabood soo diyaarsatayo oo ilma adeerayaasha maalin kasta ay durbaanka kuu tumaan maahan madaxweyneyaalka iyo ra-iisul wasaarayaalka ilaahay ka cabsada mas'uuliyaddu adinka idin saaranta waxay saaranta mas'uuliyaddu lambar 1 madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo culimada masaajidda iimaanada culimadoo dhan wada kuwa iimaanada ah saddexdii naas qolo ayaa laynka rabaa dalka inaad hagaajidaan adeer waayo dadka ma dhihi kartaan islaamnimo dadka kuma hadlay kartaan islaamnimo maanta ma jirto dadku wax ay ka baqaan oo ah maaragtay aan ii sheeg practice ah oo la taaba kalo dadku inay ay dhahaan dawladdu ma ogola sharcigu ma ogola waa inay dhahaan shaqadayda laga eriyaya haddaan shaqadayda ku ciyaaro qofku inuu yiraahdo laakiin shanta fagax qofkii si taho dhaxal aabiis oo yahay habadaba gelin saw doona ha ka yeelo dadka lacagta ha ka aruursado jidkii la gelin maa isbitaal la gelin maa maskiinka wax loogu qaba maa agoonkii waxba loogu qaba maa qashinkii lagu aruuri maa maxaa tiraahday adinkii oo dhan adinkin waa naaxnaaxadeen guryo waaweyn oo sare waaweyn oo qurqurux badan maxaa halkan business gelin laakiin qashin magaaladii qashin adinkii qashin caruurtii qashin ilaahay laga cabsado ittaqillah ilaahay laga baqo waa in dadka shaqada haaya oo dawladda shaqada u haaya waa in dabagal lagu sameeyo san horeba aan idinku sheegay aad iyo aad u mahadsantihiin jazaakallahu khayr intaasaan rabay inaan ila wadaago assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu